فضيلة الشيخ nin ayaa wuxuu noo soo qoray su-aal ku saabsan familiga ama qoysaska wuxuu leeyahay xaaskayga ubad oo caruur ii leh oo aan isqabno ayaa waxaan siiyey guriga waxaan ku guriga adigaan ku siiyey laakiin mar walba oo aan wax yar isku qabano waxay tidhahdaa ifur markay erayadaa isticmaasho waxaa ii muuqata inaan gurigaygii la noqdo arrinkaas diintu maxay ka qabtaa بارك الله فيك وجزاك الله خير horta haweenka xoolo in la siiyo waa wax wanaagsan laakiin qof walba garaadka uu leeyahy inuu garto waa shay laga maarmaan si guud ahaan ayadoo dhibaato jirin qofta haweenka in ay tiraa wax dhib ah oo markaas ifur u tiraa oo sharci ay aalin in ay tiraa haweentii hal li furo nabigu wuxuu leeyahy sallallahu alayhi wasallam qofka caynkaad samaysay ilaahay jannadiisa ma geynayo horta waa inay haweenka Soomaaliyeed isgartaan had marka ay fur hal labada qof markay saa isu galaan qofta Soomaaliyeed waxay ka bilaabay ifur madaxaygiisii dalqadaydiisii naama waalantahay ilaahay ka cabso qof muslimada ma tiid hadaa soo iskhilaaftaan labada qof waa isxalin karaan maxaa la yiraahdaa hal dalaaq waa meesha ugu dambaysa waxa laga yaabaa ilmaa jooga xuquuq badan baa taala adiga laftaada xanaaqaas u baa ku haya maahin meel kale oo u socotid ma jirta imisa haween oo Soomaali oo intay mar isfureen rag iyo haweenka isfureen oo mar labaad isfureen mar saddexaad isfureen qaylinayeen oo leeyahay xal nool raadiye war xaqeenkii keenayna idinka xuduud ilaahay gudubteen war haween gabdhaha Soomaaliyeed waxa way qofka hadaas hadda u carood hadana wada heshiin wad jeclaanay maxaa la yiraahdaa furtan in ka soo horeysa bal joojiya tan labaad ragana rag Soomaaliyeed idinka miisaan yeesha dad aqli qaba noqdo gabadha markay xanaaqdaba waxaan waa haween adiga laga doonayaa inaad u dul qaadato gabadha markay hadal kuleel ku yar hadashaba inaad adigana meesha ka sii beegtid oo tiraa maartay waad furantahay saddexaad ku furantahay waa ka talaaqdaadi orado iga tag inaad tiraa ana la kala maarmi karin wax badan oo xuquuq iyo culays badan dhaxdiin u yeel asna kala maarmi karin arrimahaas oo kale waa khalad iyo safiihnimo iyo maartay aqli garashay darra marka horta arrimahaas oo dhan waa yeelaan laakiin hadday dhacdaba mar alla in ninka ay gabadhi kala tagaan asagoo xoolo badan siiyey xalaal uma aha inuu wax ka qaato xoolihii ayaga ay mar labaad inuu ka qaata gabadhi markuu siiyey xoolaha kadib xalaal uma aha liannahu ilaahay wuxuu leeyahy walaa ta'khuduu mima aataytumuuhunna shay-an ilaa an yakhaafa an laa yuqiima xud yacni ha ka qaadin wixii aad hore u siiseen gabdhaha waxba ha ka qaadanina ilaa wax kale inay imaadaan oo qoftii ay xadgudub sharci iyo waxyaaba noolaasha darra ay imaado oo marka ida furiin dalbad oo markaas oo kale haday taa dhacda marka khulac iyo wax saas oo kale way imaadi karaan laakiin waxaan ka ahayn arrintaas ayada ma banaana adigana gabadha Soomaaliyeed waxaan ku leenahay ninkan wanaagi uu kugu siiyey fiiri xoolahan uu ku siiyey gurigan iyo wax lamidka wax uu kugu siiyey fiiri iyo wanaaga maarad ninka wax ka badanna waa ka qaadanay biri reerka dhammaada iskale asaga dhammaad leedahay marka ilaahay ka cabso gabadha Soomaaliyeed furiinkan aad dalbanaysaan iska daayo oo degdeg umada Soomaaliyeed dhibkaas haysta boqolaal family ayaa xiriirada ay nala sameynayeen oo leeyihiin maxaa la yiraahdaa dadkii saddex ay isku fureen maraan laba ku furay maraan mid ku furay maraan maarad intaas ay ga dhacday waan xanaaqsanay in saddex isku furan tahay baan iri ay leeyihiin wax la koobi kara maaha war safiihnimada iska daay ragow oo rag noqdo dulqaad yeesha war kabdhow idinkan ay furtaan aad ka bilaabanaysaan iska dhaaf arrinta khalad way barakallahu fiikum